shalay ficilka airbortka muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dowladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka faqradiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyay oo ummad dhaxdeeda karaamo ku laho mudan in si gooni loo weyneeyo waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidanahay ficilka noocaas dowladnimadan jecelnahay qaanuunkan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa dalkan iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dowladnimo keenaynin ka dayimayno naf una maxaan ku iraahdaa waxay una muxuu ahay jilcimayna ama ka aamusimayna cod dheeraan ku leenahay waxaasi khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad berri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto in suurtagal tahay dadku inay noolaalayiin dulqaadka dadka muqdisho ayaa dowladdan ku jirta dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay mar kalena waa ku celinaynaa dadka maragga laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo dowladdu iskuma dayin haddii tigsmaay wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkay muxuu shidaal kusii shubaysay dabkay shidaal kusii shubaysay in holcu intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso markay waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaay ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha mugaan leenahay marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dowladda lagu aamini karo waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummadan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyada dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay muddadii waa gaari weynaa hal sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jecel cid lagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartay ma jiro dhaqanka dowladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiro teeramka dowladdaani ifafaalaha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyo waqti badan isaga dhumin Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqeyn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqeyn kara rabitaankooda meel iska soo dhigeen kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haystay oo madaafiicda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda ridaya ayaa maanta waxay leeyihiin war heedahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraahdo maya dastuurka lagu dhaqmo maayo aniga muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ay dhowrmo helayaan ayagana la dhowriya shacabka haday ixtiraami waayaan ixtiraam helayaan qaanuunka haday dhowri waayaan dhowr muxuu ahay ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan wadadaas inay bedelaan wadada ay haayaan meel xun ay ku dhamaataa qar dheer ay ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimo u leenahay waa soo joogna dalkan 30 sano dowlad la'aanta ayaan soo joognay wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan wili ka jooga hadda adigu ka maqnaydeen dalka odan jooginina war annaga soo joogna wadadii lagu dhumay waa wadadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maragga iyo cunaqabateynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku raada xorriyadda dadkaana waa dul qaateen waxa ay maanta u dul qaateen wax badan oo kamid ah looma dul qaadanin shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko laakiin de wax walba xaday leeyihiin xadkiya laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato